madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi cabdi kulankan degdeg ee caawa iskugu yeedhay shir guddoonka golayaasha wakiilada iyo guurtida iyo hoggaanka xisbiyada mucaaridka ee somaliland ee wadani iyo ucid ayuu ujeedkiisu ahaa hadallada ka dhanka ee lagu durayo qarannimada iyo madax bannaanida jamhuuriyadda somaliland ee ka soo yeedhaya madaxda dalkaanu jaarka nahay ee Soomaaliya kulanka saddex goosoodka dhex maray madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland shir guddoonka baarlamaanka iyo hoggaanka xisbiyada mucaaridka ayaa lagu gorfeeyay xaaladda guud ee qadiyadda jiritaanka somaliland iyo hadallada ka dhanka qadiyadda madax bannaanida somaliland ee ka soo yeedhaya madaxda dalkaanu jaarka nahay ee Soomaaliya madaxweyne muuse biixi cabdi kulankan wada tashiga ee iskugu yeedhay shir guddoonka baarlamaanka iyo asxaabta mucaaridka waxa uu gol leeyahay sidii meel looga soo wada jeesan lahaa qadiyadda jiritaanka somaliland iyo horumarkeeda madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi cabdi kulankan wada tashi ee uu la qaatay shir guddoonka baarlamaanka iyo asxaabta mucaaridka waxaan ka soo qayb gelin gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo kulankan qaran ka cudur daartay kadib markii uu sheegay inuu leeyahay shirar isaga gaar u ah